kusoo dhawaada Karamo Films. Maanta waxaa idin soo bandhigayaa filim drama ah oo la baxay The Stoning of Soraya oo la daawaday 2008. Filimkana waxa uu ku saabsan yahay dhacdo naxdin leh si aan u soo gudbino ku soo kanaalkeena muuqaalkan Lexar. Bilowga filimka, suxufiga Faransi Iraani ah oo la yiraahdo Freedom ayaa ku sugnaa Iran. Gaarigiisuna waa jabay. Wuxuu saacado ku sugnaa jidka ilaa gaari yar oo rakaab sida u yimaado una jiido tuulada u dhow. Waxaan aragnaa haweeney lagu magacaabo Sara oo soo gashay webiga si ay u duugto lafaha ay cunayeen. Waxayna u degdegtaa tuulada halkaas oo ay ku aragto Freedom oo gaarigiisa u dhiibay farsamayaqaan deegaanka ah oo lagu magacaabo Hashim. Markii hore Hashim wuu diiday shaqada, laakiin wuu aqbalaa markii Freedom lacag dheeraad ah siiyo. Sara waxa ay ogaatay in Freedom uu boorsidiisa ku wato mikrofoonka wax duuba. Markaas ayay isku dayday inay la hadasho si ay ugu sheegto sir madow oo ku qarsan tuuladan, laakiin waxa soo dhex galay wadaadka tuulada Sheikh Xasan iyo duqa magaalada Ibrahim. Waxayna ku yiraahdeen waa qof waalan, iyagoo xoog kaga eriyay labadii nin aad ay ugu xumaadeen joogitaanka Freedom. Waxayna isku dayeen inay marti qaadaan, balse wuu diiday. Wuxuuna kaligii tagaa maqaayad. Halkaas ayaana Sara mar kale soo agmartaa. Waxayna u soo tuurtaa warqad yar ay ku duuban tahay laf iyo qariirada gurigeeda tilmaamaysa. Freedom waxa uu go'aansadaa inuu aado, isagoo hubinaya in aan qofna arkin. Markii uu guriga yimaado, Sara waxa ay u dirtaa gabdhaha yaryar si ay guriga u soo galiyaan. Waxayna u diyaarisaa shaah. Waxayna ka codsataa inuu dhageysto qisadeeda. Wuu diyaar garoobaa isagoo duubaya codkeeda. Sheekaduna waxay ku bilaabataa toddobaadyo ka hor. Sara waxa ay leedahay habar yar lagu magacaabo Soraya oo ninkeedu ahaa Cali. Waxa uuna ahaa nin xun. Waxayna wada lahaayeen 4 caruur ah, 2 wiil iyo 2 gabdhood, balse xiriirkoodu ma fiicnayn. Cali waxa uu rabay inuu furo Soraya si uu u guursado gabar 14 jir ah oo lagu magacaabo Mary, laakiin Soraya ayaa diiday maadaama aysan awoodin ay qoyska dar yeesho. Calina waxa uu tagayaa Sheikh si uu arrintan uga dhaadhiciyo, laakiin markii uu diido wuxuuna ugu hajabay inuu fashalayo isagoo oo sheegaya taariikhdiisa hore ee dambiyada. Sidaa awgeed Sheikh Xasan wuu ku qasbanaaday inuu aqbalo. Sheikh waxa uu tagayaa guriga Soraya isaga aan ogeyn in Sara dhageysanayso. Wuxuuna xasuusanayaa waajibaadka xaaska. Wuxuuna ku qanciyay in furunku yahay xal fiican haddii aysan shaqay karin. Cali waxa uu ballan qaaday inuu wiilasha qaadan doono, gabdhahana Soraya qaadan doonto, gurigana ay Sara ku soo jiri doonto, laakiin taas kuma filan inay ku noolaadaan. Sheikh waxa uu intaas ku daray in isagu naf iyo maal u bixi doono, laakiin shuruudda ayaa ahayd inuu si ku meel gaar ah u guursado Soraya. Sara ayaana markaas si xun ugu qaylisa, gurigana ka saarta. Kadibna waxa ay Soraya weydiisay xiriirka ay la leedahay Cali. Soraya waxa ay muujisay jirkeeda nabarrada iyo dhaawacyada uu ku dhuftay, markastana uu xoog u garaaco. Cali ayaana guriga ku soo laabta. Waxa uuna ka caroodaa in Soraya aysan ogolayn in la furo. Wuxuuna carruurta ka hor sheegayaa inuu guursan doono Mary. Wuxuuna wiilasha ku diray hooyadood ilaa uu wiilka weyn hooyadii ku qayliyo. Markii ay xaaladdu kululaatay, Soraya ayaa xanaaqday. Waxa ayna jabisay weel, kadibna gabdhaha wadatay. Cali ayaana ku dhuftay 2 jeer feer, balse way adkaysatay. Waxayna gabdhaha la tagtaa guriga Sara. Sarana waxay ballan qaadaa inay duqa magaalada la hadli doonto si uu u caawiyo, maadaama mar hore uu jacayl u qabay Sara. Waxaa soo galay Hashim oo u yimid Sara si ay u caawiso xaaskiisa oo xanuunsan. Markii ay guriga tageen, waxa ay ogaadeen in xaasku ay dhimatay. Sara habeenkii oo dhan ay meydka diyaarisay. Subaxdii Soraya ayaa timid si ay u caawiso aaska, iyadoo dumarkii kale ka kala dirtay guriga. Kadib Sheikh ayaa soo jeediyay in Soraya ay caawimaad siiso Hashim iyo wiilkiisa maadaama aysan kaligood ku filnayn guriga. Sara waxa ay shuruud ku xirtay in Soraya ay mushaar ka hesho shaqadaas ay qabanayso, lacagtaasna uusan Cali taaba karin. Sheikh wuu aqbalaa. Markii ay baxaysay, duqa magaalada Ibrahim ayaa uga digay inay afka furto. Soraya waxa ay bilowday shaqada Hashim si wanaagsan ayuuna ula dhaqmay, taasoo ku dhiirigelisay. Waxayna bilowday inay dhar samaysato, lacagna ku kaydsato Sara si mustaqbalka ay kaligood u noolaato. Laakiin Cali waxa uu bilaabayaa inuu faafiyo warar sheegaya in Soraya iyo Hashim xiriir qarsooni ay leeyihiin. Wuxuuna ku hanjabay inuu marqaatiyo keeni doono. Tuulada ayaana wararku si dhaqsi ah ugu faafeen. Maalin Soraya oo wax u qaada guriga Hashim wuxuu ku casuumay casho, laakiin way diiday. Ibrahimna waxa uu sheegay inuusan maxkamad saari doonin qof aan caddayn lagu haynin, balse Cali iyo Sheikh waxa ay qorsheeyeen in Hashim lagu qasbo inuu been ka marqaati furo. Waxayna ku cabsiyeen inay wiilkiisa u diri doonaan xabsi ama isbitaal maskaxeed. Markaas ayuuna aqbalay inuu been sheego. Hashimna waxa uu sheegay in Soraya ay sirrada la seexato oo ay la dhaqanto sida xaaskiisa. Cali ayaana Soraya banaanka ku soo jiiday isagoo dadka hortooda ku garaacay, kuna eedeeyay khiyaano. Sahra ayaana dhex gashay oo ka difaacday. Ibrahim ayaana yimid. Markaasna Hashim waxa uu sheegay beentii. Sidaasna waxa maxkamad lagu saaray Soraya. Xukunkiina waa lagu dhawaaqay. Soraya waxay ku eedeysan tahay khiyaano, waxaana lagu ridi doonaa dil dhagax tuur ah. Saacad gudaheed, Soraya oo guriga ku sugan waxay carruurtii ku macsalaamaysay, dahabkiina qoyska siisay. Sahrana waxa ay ballan qaaday inay gabdhaha daryeeli doonto, runtana u sheegay. Ragga tuulada ayaana qoday god, waxayna diyaariyeen dhagaxdii lagu dili lahaa. Soraya ayaana la keenay, godka dhexdiisa ayaana la geliyay. Sahrana waxa isku dayday inay nafteeda badbaadiso, balse waa la jiidayaa. Markii hore aabeed Murtesa ayaa dhagax tuuray, laakiin ma gaarin. Qof dumar ayaa ku qaylisay inay tano tahay calaamad, gabadhana been laga sheegayo, balse waa la iska indhatiray. Kadibna Cali ayaa dhagax ku dhuftay oo dhaawacay. Kadibna Sheikh iyo 2 wiil oo Soraya ayaa dhagaxanta ku tuuray. Hashim isaga wuu diiday, isagoona goobta isaga baxay. Inta kalena way wada toogteen ilaa ay ka dhimatay. Markii la dhameeyay, fanaaniin safar ah ayaa meydkii busta ku daboolay, halka dadkii kalena ay dabaaldeg ku mashquulsan yihiin. Waqtigaas Freedom waxa uu dhameystiray duubidda
muhiimadda qisada. Markii uu baxayay, Cali iyo Sheikh ayaa isku dhacsan sababtoo ah guurkii Mary wuu fashilmay. Haashimna waxa uu qortay inuu been ku marqaati furay. Ibraahimna wuu ka carooday, waxa uuna rabay inuu la xisaabtamo dadkii sameeyay waxaas, balse waqtigu ma saamixin. Sheikh ayaana ciidan u yeerayay si Freedom u qaadaan codadka uu duubay, waxayna ku qasbeen inuu burburiyo. Laakiin Sarah waxay si qarsoodi u siisaa qayb ka mid ah waxyaabihii codadka lagu duubay. Markii uu Freedom rabay inuu ka baxo tuulada, gaarigiisa mar kale ayuu cilad galay. Dadkii ayaan isku dayay inay hor istaagaan, laakiin Sarah ayaa is hortaagtay si ay isaga waqti u siiso dhaqsana u baxo. Inkastoo dhagxaan lagu tuuray, haddana Freedom wuu ka tagay tuulada. Sahrana waxa ay ku faraxday in sheekada Suraya aysan tuulada ku ekaan doonin, balse ay dunida dhan gaari doonto. Waqti kadibna, Freedom waxa uu qoraal ka sameeyay dhacdadii Suraya, waxa uu u bedelay buug. Buuggaasna waxa uu noqday mid caalami ah oo si weyn loo iibsado, wuxuuna dunida tusay cadaalad darrada lagu sameeyay haweenka qaar. Halkaas ayaana filimka The Stone of Suraya oo ku dhamaaday. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Muuqaalka like saar YouTube-kana ku soo biir.